dhalinyaradii iyo kii baa markaa tashaday fariintii boqorku markay soo gaadhay tashadeen oo waxay siraadeen boqorkii fariinta buu soo diray oo wuxuu leeyahay laba mid haniigu imaado inaad diinta islaamka sheeganaysaan aad ka soo noqotaan oo aniga cibaadadayda dadkoo dhan ba aniga caabudo iyo baryo waxay weydiisteen inaad aniga inkuna kuwa caabudaya aad ka mid noqotaan oo dadka wadanka ku nool aad la mid noqotaan iyo inaad maaragtaan amarkayga aad iska diidaan oo inta nolosha aan laynagu qabto halka inta nin walba geed aan ku xidho dhagax sida loogu tuuray nafta aan kaga saaro marka way tashadeen waxay yiraahdeen diinta islaamka ilaahay nagu galadaystay ilaahay baan rumaynay id qaamu faqaalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alaha ila akhir al-aya rabbi bay rumeeyeen iyaku allaha samaawaadka iyo araadiinta iyo koonkan iyo kaa'inaadkan uumay ee isagu gacantiisa ku abuurtay ilaaha baa ku galladaystay inay ilaahay rumeeyaan ay aaminaan inna markaasay door bideen inay dalkooga iyo dadkoogaba ay u seegaan diintooda inay badbaadsadaan dalkoogii iyo dadkoogii waxay ka door bideen inay diintooda badbaadiyaan waliba bacd al-kutub waxay dhigaysaa dadka dhalinyaradaasi dad fuqaraa iyo masaakiina kamay soo jeedin waxay ka soo jeedeen usrad loo yaqaano oo wada aqniya ay ka soo jeedeen baa nin walba aabihii ama dawladdu mansab ku lahaa ama maalqabeen la yaqaanoha yadna waxay door bideen waddanka dhanba inay seegaan eheladoodiina ay waayaan laakiin diintooda inaysan waayin yani diinta qaaliya dadkaaga iyo adiga mawdka ayni kala geyn wayni kala qaadi adduunyadan aad joogtana mawdka ayaa kaa qaadi laakiin diinta maaragtayna mawdku kaa qaadi maayo diinta adiga iimaanka aad ilaahay rumaysan tahay iyo diinta aad ku dhaqmaysid adduunkan intaad joogtana ciz iyo sacaado iyo sharaf baad ku noolaan qabriga markaad gashana diintu qabriga way kula galiyo waxbay ku tari aakhiro banka qiyaama markaa lagu soo saarana diintu waxbay ku tari way ku anfici naarta inaad ka badbaadana diintaa sabab u noqonaysa janno qofku inuu galana waxaa sabab u noqonaysa waa diintiisa diintuna waa diinu lislaam ina diina cinda allahi alislaam ilahay baa sheegay islaam uu weeya diin kale ma jirto ugu waxaan kale adduunka jiro oo dhan dadku sheegayaan waa hawa afara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawa ilaahay baa sheegay hawadoodii bay raacayaan baa ilaahay kuwaas waxay naftoodu ay jeclaato bay caabudayaan naftoodu baa qololba waxay wax u qurxisay shaydaanka dadna way caabudayaan laakiin diinta ilaahay agtiisa laga yaqaana waa diinul islaam marka dhalinyarada waxa door bideen dalkii iyo dadkoogii oo dhinaca iyo diintii oo dhinaca maxay qaateen bal sheegay diintii bay qaateen adeer naga daa waxaan la duubay inta baa nagu filanay meelaha ka daawada hadhow toole الله الناس dalkii dhanaa bay seegeen iyagu gabalkii markuu dhacay ay lugeeyeen mid saaxiibkooda markaa xoolo dhaqanayay oo xoolaha uu jiray marka ay uu watayba ariga la raaci jiray kiina way u sheegeen oo waxay ku yiraahdeen anagu dalkii waan ka baxnay oo maxaad uga baxdeen boqorkii baa fariinta noo soo diray ima islaamnimada ka soo noqda oo aniga cibaadada la caabudaya ku soo noqda ima inta nolosha aan nagu qabto ayaan dhagax tuur inagu dilayaa maxaad doorateen dalkii waan ka tagnaa anagu waa socon daana waan raacayaa buuri markaas kharaju way baxeen aygii baa markaa aygii isagu uu watay adhiga la raaci jiray ayaa raacay baa layidhi oo daba kacay markaa bay ku yidhahdeen aygaagan uuna sheegaya naga reeb markaasuu si walba dhagax halku ugu tuuray buu hadhi waayey aygii iyo kii baa markaa hareeraha dhagax iskala taagay
luqadii marka ay ku hadlayeen ayaa ilaahay aygii ka dhawaajiyey wuxuu yidhi marka wuxuu yidhi diinta aad aaminteen allaha aad rumayseen baan aniguna u aqaanaa allahu rabbulcaalamiin keli inuu yahay maxaa see keen reebaysaan buu ku yidhi yaana ka hadliyey ilaahay baa ka hadliyey markaasay haddeetoole markay arkeen aygii oo hadlaaya ayay af soomaaliga kugula hadla ka waran soo cajiib maaha afkoogii buu kula hadlay luqadoodii saryaaniyadii oo iska kaxaystay xayawaanka ilaahay baa ka hadlinaye oo nabigeena calayhi salaatu wassalaam markuu madiine soo gaadhay nin magaalada madiina miigeyga adhig la jooga ayaa dhurwa baa qaatay ama diib neef buu ka dafay baa la yidhi dhurwaagii neef buu ka qaatay uu ka daba bowday baa la yidhi neefkii buu ninkii ka soo ritay libaaxi dhurwaagii ayaa halkaa istaagoo yidhi waa cajaba ah waa arrin la yaab la buuri war ma rasaqa ilaahay afka uu ii soo geliyey ayaad ina aadanow aad iga hadhi wadood iga reertay buu ka yidhi luqadiisii buu kula hadlay carabigii ninkii baa yaaboo yidhi waaba cajiib mayay ayaa luqa carabiya igula hadlaya hadal bini aadan igula hadlaya marka yaygii baa u jawaabo ku yidhi hadalkaan anigu aan ku hadlay waxa ka cajab badan baan kuu sheegay muxamed calayhi salaatu wasalaam oo magaalada madiine soo gaadhay oo khabarkii samada ilaahay uu soo dejiyey ummadda uga warramaya oo dadku ay la yaaban yihiin kaasaa aniga iga cajab badan ee ordo madiine tagoo nebiga rumey buu ku yidhi marka warrama isagoo ordayo adhigiisii wata buu magaaladii madiine soo galay ninkii markaabuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebigu ku yidhi saxaabadan u sheeg lanna ilaahay baa ka hadliyey yaa ka hadliyey allah baa ka hadliyey aygii markaa dhallinyaradii uu raacay waagii markuu caddaaday baa la yidhi god bay galeen kahaf waa god buur ku dhex yaalla urdun iyo meelahaana waa lagu sheegaa dadna waxay ku sheegaan turkiya ku sheegaan laakiin xaqiiqada ilaahay baa garan way seexdeen markaa ila xalay oo dhan bay lugeynayeen oo dhuumanayeen oo ordayeen moogta waana la raadinayaa gabalkii markuu dhacay xilliyadan oo kale ayay yidhahdeen haye haddaba caawa waan guuraynaa hadda maalinkii oo dhan way hurdeen way dhuumanayeen habeenkana waan guuraynaynaa waxay dhahen laakiin safar ma gali karayna xilligan xalay oo dhan waan soconno wax ma cunin safarkuna wuu dheeraan karaa de maxaan samaynaa lacag intoon iska qaadno nin innaka inaga mid ahan u dhiibno magaaladii ha ku noqdo cunto ha inoo soo qaado haddii la qabtana yuusan na soo sheegin annaga magaaladii buu mid soo galay markaa isagoo isqarinaya walyatalataf waa ka qur-aanka ilaahay buu yidhi walaa yushciranna bikum axada haddii la haleelo isagoo la gartana yuunan cidna noo sheegin keligii ha ku ekaata dhibtaas ila diin baan la baxsanaynaaye diintaada meesha dhaawacaysa inaad ka baxdaa waa waajib weeyaan halka iimaankaaga dhaawacaysa ee diintaada iyo caqiidadaada iyo islaamnimadaada wax yeelaysa inuu qofka muslimku jooga ma bannaano waa inuu eegtaa meel ay diintiisa iyo islaamnimadiisa ku badbaadi karayso dhallinyaradaasi waddankoogii maxay uga baxeen inay diinta badbaadsadaan leanna diinta qaaliya magaaladii buu yimiday cuntadii markii uu qaaday uu lacagtii sidhi dhiib ayaa ninkii lacagta ka qaadayay baa eega lacagtii lacagtan xaggeed ka keentano jeebadayda aduu xaggeed ka timidoo de anna meel dhow baan ka yimiday dadkii baa ku soo uray adeer lacagta xaggeed ka keentay maad ciyaaraysaa adoo maqaaxi magaalada ku taallantoo tiraada baaste iyo kalluun iyo hilib igu gura oo lacagtii hayle salaasa u soo saara ka waran shalay bay ahayd hayle salaasa ma dheerayn dhowr iyo 70 bay ahayd lacagta yarkan u wataa waxaa laga joogaa 3 qarni baa laga joogaa 300 oo sano iyo ziyaado
markaasay yaabeen dadkii oo dhan lacag xaggeed ka keentay anaa wata anaa sita aduu xaggeed ka timid meel dhow markaasayna anagu dad muslimiin aan nahay dadka ma dulmino cidna xaq darro dhib uguma geysan lacagtan aad wadato waxay waddankan ka shaqayn jirtay zaman boqor la odhan jiray hebel uu dalkan xakumi jiray oo muddo 3 qarni iyo dhowr sano laga joogo ayay lacagtani waddankan ka shaqaynaysayoo saasaan adiga kula yaabanahay sidaasaan adiga kula yaabanahay uu yaabay markaa yarka yaa 300 sano odu maxaa tahay oo anu boqorka aad sheegaysaan dhalinyar iimaankoodii iyo islaamnimadoodii iyo diintoodii la baxsatay baan la socday hal habeen keliya ayaan guuraynay waagu markuu baryayna god baan gallo waan qarinaynay galabta markaan hurdadii ka kacnayna anaa lacagta la ii soo dhiibay oo laygu yidhi orodoo magaaladii noo tago cunto noo soo qaad si qarsoodiya haddii adiga lagu qabtana hana soo sheegin oo dhallinyaradii kale mee godkii bay ku jiraan oo weli way hurdaan iyagu anay sugayaan 309 sano walabithuu fii kahfihim 300 siniina wasdaaduu 9 ilaahay baa qur-aanka ku sheegay 309 sannadood timahoogi ismay bedelin midabkoogi isma bedelin dharkay wateenna ismay bedelin may harraadin mayna gaajoon mayna bukoon kulayl baa waddanka ka dhacaya kulaylkuma saamaynin baraf baa waddanka imanayo ka dhacaya barafkuma saamaynin abaaraha adduunyada ka dhacay abaaruhu ma saamaynin noloshoodii iyaka ilaahay uu joojiyey halka caalamka inta kalena noloshu ay socoto soo doonayala waayo allah qisatu asxaab alkahf cibra ku jirta cibro iimaan baa laga bartaa cilmi baa laga bartaa diin baa laga bartaa mujaahadada iyo tadxiyada diinta loo hurayaa laga bartaa in yar bay dhallinyartaasi ay tabceen laakiin taariikhdu ilaahay ka reebay bal u fiirso ilaa qiyaamaha laga sheekaynayo mee dhallinyaradii godkay ku jiraan anay isugayaan way jiifaan boqorkii muslim waddankii mujtamaca ku noolaa o dhan wada islaam waddankii uu isbedelay 3 qarni baa soo wareegtay ilaa adduunkan ayaa ka taliya kol boqolaa adduunka qabsanaysa oo camiraysa qolo kalena way socon kol boqolaa camiri qolona way socon qoladan timidana ilaahay baa keenay kuwa socdana ilaahay baa kaxeeyey wax kastana waqti buu leeyahay ogow likulli shayin lahu ajalun musamma shay kasti ajal buu leeyahay xilli buu leeyahay xilligiisu hadday gaadho uu socon habeenku muu joogaa mise u socdaa maalintu may joogtaa mise way socotaa wiigu muu joogaa mise uu socdaa biluhu may joogaan mise way socdaan adduunku uu socdaa cajlad wareegaysa weyn aclam yaku gaalay adduunyada dhallinyaradaasi gaal bay waddanka uga baxsadeen walaakin ilaahay 3 qarni kadib wuxuu keenay dad muslimiina waddanka inay ku noolaadaan iyaguna noloshooda ay sidoodii tahay laanna ilaahay waa qaadir calaa kulli shay bilaa biyuu ilaahay nooleeyey bilaa baad buu ilaahay nooleeyey bilaa maaragtaanay gogol baa ilaahay nooleeyey bilaa maaragtaanay bilaa asbaab baa ilaahay nooleeyey bilaa cunna ilaahay nooleeyey waa noloshoodu waa sidood isma bedelinba laanna ilaahay jalla wacala siduu doono yeela weeyaan ina rabbaka facaalun lima yuriid facaal siduu doono yeele adoo biyo cabbin haraadka uu kaa qaadi karaa adoo cunto cunin gaajada uu kaa bicin karaa asbaabtan adduunyada taallee bini aadamku ay ku noolaadaan adoonan haysan ka ku noolayn karee nolosha ku siin kara waa kuma allahu rabb alcaalamiin jala jalaaluh bilaa asbaab ayaa ilaahay dhallinyarada nooleeyay bilaa asbaab wanuqallibuhum وترى الشمس إذا طلعت
تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وذات الشمال. هذه كلمة حيد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصي. أي قال لما قلبه يسقى بالليل لأن أي بوجي السبال ليلي ضب كأنه كأذبي هاي لكن إياك أما بني آدم كا إلهي يحول وانقلبنا دنا عن مركو دالا دنا عن كلام الربينا دنا عن مركو دالا حق كلام الربينا بإلهي بشيء الله مقلبه لكن أي قصيد يسوع وجفا لأن هرجي سنة هو أي جبال ليلي بقولال سنة وحو حمل كردول كأنه صدقوها يسوع لأن أبور كان من آدم كان الله أبوري يقاب كان أي الله أبوري وكل دوان تهي لأن حتى بني آدم كو حبوها بينك حق بدح له أصيح لو كمر راجي كرو وإنه رئيس كل رجال الولاية حق الملك هذا أصيح ده نهاية الساعة وقفوا جير في كرام لأن الملك تمرك هذا أصيح حتى قلبي وهلك بدح دكويا لا لكن بدح ده مرك هذا أصيح حتى بال يري قلبي جا وزنك يعلس ودم بكون عاية لأنه قفوا كبد مياه خروج مركز كل رجال لذلك النبي محمد وحي إنه جديو نوس النيي إننا على صح ملك الله صح هذا قال هذا مركز علم الآلات كان وحول بقى يكون اكتشافين يكون قاعدين مركز هلان إيه قاعدين بني آدم كو وين ملك توصيح لان هذا إنكم قرتين مياه هذا يكون قرتين آلات بيكون قرتين يكون أجان يقلب كان سمجتين ولكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام بوحي من الله وحي إلهي حقي سكجي مدي أي نبي إنه وشيء هدي سواها كمده هاي ويري متكين هبين كمركو جوشي سقاته هي فليضج على شقه الأيمن بالنبي يقول حاجة ملك تعوص يحدى بالنبي يقول غفل قلبي يجيب حاجة كوي يعني لذلك قفك وعينه مرول بإن للرجوع يعني وقلبي النبي إلى هيدا لنا عن مركو دالو حاجة كلام قلبيني حاجة نمركو دالو لنا على كلام قلبيني نقصد مالين يجي شيء نن دختر أو جرمنا هيا وضنا داس أيو إيربور أيو مركز ديارات بمجالك لا أوراعي ندل يرى مسلم أيا مركز سورة الكهف قصة داس رسالة يرى علماء أي كقرآن وتفسير كقرآن كأونا وحكى لأي نكدرين واللغة الجرمل كلغو قري لغو طابعي أيو مركز يرى كذا كأوقي قيبينية ده كي ديارات دسوقية كراسة كوفدية نكن وانم بروفيسور أو دكتور أو رجع الدنيا ده حاجة دكتور لماذا هو أقام بدن بكوجرا لأن ودنا كجرملكو وودنا كلغو شيء اللي هذا وودنا كأدون هو أقام بدن حاجة دكتور لماذا لو دون تعافماتك إلهي بنا عافماتك هي عافماتك هي إلهي بنا وزارة دي عافماتك على قولنا لكن وزير كنا عافماتك هو بكاء الجوار شيء وزارة دي عافماتك وزير كنا هو بكاء نبى نقول إن كان روح مدح كيه هي أدك هرتك مصيبين كطبيعي كا مركز أكون الرئيس كأجمع مصيبة كل عادي وعرينا كي يقولون بيجا ولا بيقولوا ولا يهيبا ده بدور تكتدا عم كمور تكرر الإنسان هو ضعيف وكان الإنسان ضعيفا خلق الإنسان ضعيفا إلهي بشيء ضعيف marka wadanka dhakhtarnimada lagu amaano ninka marka ka soo jeeday risaaladuna luqadooda ku qorneed marka yarkiiba uu tuuray oo siiyay oo qaado marka handbag uu gacanta ku sitay iskaga riday waa nin mashquul ninkani laakiin taraaga diyaaradda uu raacay min wadan ila wadan ayaa saacado dhan buu soconayay marka kolkuu kursiga fadhiisto hawlihiisii wixii uu ageeganay uu dhameystay buu xasuusto yiri kii yaray airportka aad ku aragtay muslimka ahaa warqadii uu ku dhiibad halka ku ridatay bal soo saar oo soo saar aayadaas markaas dul taagay wa nuqallibuhum dhaata al-yamin wa dhaata al-shimal lan yarada ilaahay bayda marka ay jiifaan marna midigtaan u beddelnaa baa ilaahay marna xagga bidixdan u dhignaa say u daalinde ila qofku xaggan haduu u jiifo xaggan xanuun baa gaadhay jirkiisa waa qalibnaa baa ilaahay
laakiin ayga ilaahay markuu ka warramayay wuxuu yidhi wa kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiil may aygu isagu lama qallibaayo aygu siduu seexdaa waad aragteen dee sidaasuu seexdaa isagu aygu bogganuu dhulka dhigaa wuxuu yidhi markaa ninkii wuxuu akhristay bini aadanka markay jiifaanna waxaa qur-aankan uu sheegaya in la qaqallibaayo asxaabalkaaf oo marna xaggan loo rogayay marna xaggan loo rogayay laakiin ayga maxaa loo rogi waayey buu yidhi waa inaan cilmigaa baadhaa markuu waddankiisii tegey uu dhakhtarkiisii ku noqday ayuu qalabkiibuu baadhay oo wuxuu baadhay markaa dubkii bini aadanka ila waxaan way wada haystaan moogta dubkii bay eegeen qalab buu ku eegay inta saacadood dubka bini aadanku dhulka dulooli kara buu soo saaray ayga haddana wuxuu soo saaray boggiisii markaasuu soo saaray haddana maaragtaane inta sane aygu boggiisu uu dhulka dul ooli kara lagu hayn karo sanawaad qurun dhan markaasuu yidhi cilmigan ninka keenay baan u baahanahay buuhi adduunka waa ayo markaasaa muslimiin buu raadiyey uu la hadlay uu la xidhiidhay waxaa la yidhi waa qur'aan waa tanziilu min rabbi alcaalamiin munazal goormaana qur-aanku soo degay 14 qarni ka hor baa laga joogaa qur-aanka intuu soo degay dhowr iyo 40 sano ayuuna dushii ku soo degay muxamed calayhi salaatu wassalaam nabiy alummiy nabi ummiya ayaa qur-aanka dushiisa lagu soo dejiyey ummi baa la yidhi isaguna wax ma qoro waxa loo qorayna ma akhrin kara baa la yidhi qur-aanku nebiga sifaadka ilaahay uu ku sheegay ee nebiguna uu ku faanuu yidhi naxnu ummatan ummiya annaku waxaan nahay ummad ummiya waxna ma akhrina baa nebigu yidhi waxna ma qorno ummaddaasuu qur-aanku ku soo degay ka warrama qur-aanku waa mucjizo weeyaan mucjiz dhallinyaradii markii boqorkii iyo dadkii muslimiinta wada socda iyo yarkii ay u soo dhowaadeen buu ku yidhi haddii aan dul tagno dul istaagno way iga naxayaan laakiin qadiyaddaan fahamsiin inuu caalamku socday annakana caalamkayga ilaahay uu joojiyey waddankiina ay ka jirto dowlad islaamiya boqor islaama waa macquul waa ku sugayn boqorka dadkiisi halka bay ku sugeen markuu u galay baa la yidhi ilaa markuu ka soo baxayba way jiifteen hurdaday ku noqdeen ilaahay ruuxdii buu ka qabtay oo meydna isagii markuu godka galena ruuxdii baa ilaahay ka qaaday oo ku dul dhacayba saacado markii la sugayay la waayey ayaa loogu yimiday intoodii wada meyda macal isagii ki yara waa ka boqorku odhanaya lanattakhidanna calayhim masjida waa diinihii ummadaha inaga horreeyey shareecadahoogii sidaa darteed dhallinyaradaasi waxay halkaa ay u galeen waa ilaahay dartii laakiin bal karaamadda heleen ka warrama ilaahay wuxuu ku ammaanay inay fidsi dhallinyaro ay ahaayeen rabbigood bay rumeeyeen hanuuna waanu ziyaadinay baa ilaahay yidhi ilaahay waxa uu ku sharfay welibana hee karaamaad ilaahay inuu siiyey oo karaamadoodii ay ka mid tahay 300 oo sano iyo 9 sannadood in jirkoogii waxba uunan isbeddel ku dhicin oo sidoodii ay iska ahaadaan halka caalamka inta kalena uu socday ilaahay dhallinyarada wuxuu gadaashooda soo u xaqiijiyey amalkoogii hididiiladoodii waa maxay maadaama waddan gaalo ay ku noolaayeen oo boqorkuna uu gaal yahay ilaahay wuxuu tusay waxay indhahooga ku doogsadaan oo ah boqor muslima iyo waddan wada islaama inuu arko yarkii yaraa waxaa ka sii cajab badan baa la yidhi qur-aankaa lagu sheegay ilaa yowma alqiyaamaha la akhrisanaayo suuratu lkahf waa suuradda uu nebigu yidhi jumcada ninka suuraddaa mar akhriya buu nebigu yidhi hee labadii saallugood dhexdooda nuur baa ka soo baxa buu rasuulku yidhi oo ilaa samada isqabto malaa'igtu ay arkaan 10 suuradood ee ugu horreysa suuratu lkahf 10 aayadood ee ugu horreysa waa fii riwaayatin ugu dambaysa ninka akhristana buu nebigu yidhi fitnada dajaal kuma saamaysa buu rasuulku yidhi man qara'a أول آيات سورة الكهف عصم من فتنة الدجال فتنة الدجال الله ينقبل بادي آمين هذا الدجال فتنة دي سوى طيبك سعته وياه دمرك إيو فيسبوك إيو توك تاك إيو يوتيوب إيو بلايا جنك إيو وحمدتك وريريه إلى إسلامه وضيادي ودلن يردي
indhahay naga wada qaadeen maskaxday naga galay oo fitnatu dajaal weeyaan waxaas dajaal fitnadiisa waan ilaahay laga magan galo lana dajaal waxa ka soo horeynaysa maxaa ka soo horeynaya fitnadiisa oo min sharri fitnatil masiix dajaal dajaal intuunan iman fitnadiisa adduunka iman doonto saameyn doonta suuradda dhalinyarada qisadooda ilaahay kaga warramay waa suuratul kahf haddaa 10 suur aayadood ugu horeysa ama 10 ugu dambaysa labadaba waa xadiisku waa ku soo arooree haddaad akhrisatid subax walba dajaal fitnadiisa ilaahay baa kaa ilaalin kuma saameynaya dajaal fitnadiisuna ku saameyn mayso ilaahayna hanaga badbaado ninka dhalinyarada hadduu dhalinyarnimadiisa ilaahay uu ku gartana wanaagga iyo sumcadda fiican baa ilaahay ka reebaa taariikh wanaagsan waana adag tahay nin dhalinyaro ah inuu dhalinyarnimadiisii shaydaankii baa ugu yeedhaya haweenkii baa u yeedhaya dhalinyaradii baa kuu yeedhaysa mujtamacii baa kuu yeedhaya fisqigii iyo fujuurkii baa meel walba kaaga yeedhaya waa xilliga waalan yahay ninka dhalinyaradu markuu da'yar yahay oo waali caqligiisu caqli dhan maaha bay ku leeyihiin culimmadu ninka da'da ilaahay ku hanuuniyey ee masaajidda ku xidhma ee salaada ku dadaala ee diinta ilaahay ku dadaala ee khayrka ummadda ugu yeedha ee naftiisana badbaadiya walaalihiina badbaadiya taariikh fiican baa ilaahay ka reeba waxa uu ka mid noqonayaa 7 ilaahay u hareynaya maalinkii مالك القيامة يوم لا ظل إلا ظله وما لنت حركة وسن جرين والنبي يقول حركة إلهي مويان لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحابتي سد ليري وبنايا وينان وحكوا إسلام ويريهم بقى دوري اللباتن دوري صدن أفرتن إلى أي اللباتن أنت أقول حسيكو إسلامنا أصحابه بدنكود خالد بن سعيد باكمدا رضي الله عنه سعيد بن العاص بعد أبيه دوري تمام ويلا ولا له لا دلي بالليل وحوها أضي مركو دجال كقبائل كقبيلة أسلين أيام يسقي نمدي صف بيقبس جري صفنا كبر بدبوها جيس خالد مركو إسلامي خالد بن سعيد أي أدري ولا له يريد سوقبت خالدين تاني بكب حيبان مغلاه ومكة وريم مكة والله سوقبتي وحد حريبا لي أفرت الدين بك حلو هلك قاعد كله وعذابي وكرواي دين الإسلام كأنه قبولية كمان نقول يبود أبو دين تاس واحد كلا شيء هذا محمد كسو هاري ويدد دين سنة أتكسو نقولي ويدد بادي بيها وان كامن عين بوكيد مركز الأب هذا أدوك بيها يبات قاعد يجمع عسد الرب جايب أنا جاي يقودني بوكيد يا إرزاق يا إلا هي بيسيني طبعا أنت دي بيها ويدي يا يسين الله بيسين الله قولوا لا إله إلا الله شلي إسلامين مركب إلهي إمام كل ذي سنة يك إنك أنا اللي يريد أنا كورنا وبدأ مركب عيار يعني صلاة المغرب هذا سقطان كورنا يا خلاص كي صلاة المغربنا عروس يا صلاة عشائنا شادي يا صلاة عصرنا كأورك يسكت هذا ده ولا يدا أورك يسلك إله مدنا كقوا أمين هذا يمسوا نقالين كقوا ويمسوا عقلين كقوا ويمسوا وقتين كقوا ويمسوا عفمات كقوا ويمسوا عبادين كقوا جد كاس شنطة شيء دين الإسلام كوقف كويل على صودا جات كاس أودا وعي علم دوليه المانت نقاله إنه أودا وعي عفمات كأنه أودا وعي دين تاني أودا وعي
sharaftii aad lahaydna u dhaawacay qofka jaadka cuna sharaftiisu meel ma taalo islaanta jaadka iibinaysa hadday doonto odhan asalkaagii aabahaya asalkaabee lacagtaydii siiyo u qosli u ila waa nin sakhraansan oo si kale berri baan keeni doonaa lacagta kale isiisii haddana dee mayla aragteen car nin dhan oo caaqila oo reer dhan maamulaya ayaa duhurka kowda markay gaadha hadduu bilaa lacag yahay oo jaadlaydu lacag hore ay ku sii lahayd way caayi dadka hortiisa uu qasli u awa damiirkiiyo dadnimadii cirdigeennii buu bahalkaasi meel kaga dhacay maanta cirdigeenni isbadaan raggii iska daayo dumarkii buu maanta maraya dumarkii hadduu qofku geedka uu taabtana ogow noloshiisaas way baabaaden qofkaas waxba ma dhisan karayo ogow diintii buu la dagaalamayaa cibaadadii mid baa maalin igu yidhi markaan barqaamana salaad khushuuc baan tukadaa wi salaad khushuuc markuu jirkayga ka baxana salaadda ma kici kara buuli marka waran laa ilaaha ila allah sax maaha baan ku nidhi sax marka dhallinyarada ilaahay hayna hanuuniyo marka inaku waxaan ku dadaalaynaa sidaa nafteenna aanu islaaxin lahayn shaabun nasha'a fii cibaadati illaah in dhallinyaro ah oo dhallinyarnimadii da'dan adag ee fasaadkii balaayadii macaasidii qafladii meel walba ay taaleen lagu yeedhayo ninka ka soo hadhay ilaahay ka soo reebo ee xadhigga ilaahay qabsada xadhigga ilaahay qabsada ilaahay wuxuu ku casuumi doonaa uu nebi maxamed uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam maalinka har kale uusan jirin harka alle mooyaane tudna ashamsu yowma alqiyaamati calaa ru'uusi alkhalaa'iqi calaa qadri miil buu nebigu cadcaadda halkaa inaga gubaysa ayaa la soo dhoweyn buu nebigu bani aadamka madaxoogaasaa loo duldhigi buu nebigu dhididka qofka isaga jirhkiisa ka dhacee ka baxay ayaa 70 xusul dhulka intuu galo soo bixi doona buu rasuulku yidhi markaasaa qof walba dembigiisii intuu ahaa buu dhididkiisu iman buu nebigu qaar buu kuraamaha iman qaar buu halkaa jilbaha iman dhow qaar buu guntiga iman qaar buu garbaha iman qaar buu halkaa iman qowlalada wa minhum man yuljimuhu alcaraqu iljaam waa bad adiga kuu gaaro cid kale kuga qabin waa dhididkaagii ogow maalinka khalqigu sida u gubanayaan addoonka ilaahay ku casuumadaya harkiisa hoostiisa ka warrama allah inaga dhigo kuwaas aamiin dhaxda yaa u diyaar inuu ka mid noqdo kuwaas wacbud rabbaka xataa yaatiyaka saa ku sheegay hadda ha wecweecan mustaqiim diintaada istiqaamo ku yaalo asadii muxuu ahaa saxaabigan hadal hayay ya khaalid ibnu saciid aabbihii baa ku yidhi baadiya biyo waan kaa mancin wuxuu yidhi haddaad baadkaagiyo biyahaaga adigu aad iga haysato ilaahay bay quudinaya buu ka yidhi iska sii daayay khaalid ibnu saciid radia allahu canhu wuxuu ag yimiday nabigeena sal allahu alay wasalam daartii arqam ibn arqam buu yimiday wuxuu bilaabay markaa nebiga inuu ag fadhiyo nebiga qur-aanka ka dhegaysto qur-aanka nebiga ka barto markaasaa lagu yidhi aabbahaabaa sankaraadoo buka markaasuu u yimiday aabbihii soo ziyaartay waa gaal aabbihii mushrik laakiin diintu islaamku ku odhan mayso ha u samafalin kuma odhanayso bal waa inaad u samafashaa hadduu gaal yahayna hadduu islaam yahayna kaba sii daranba deedna markaasuu dul yimiday aabbihii oo sankaraada oo walaalihiina hareeraha ka wada joogaan markaasuu yidhi ma khaalid baa ninkay dul taagan haaba waa khaalid weeyaan diintii maxamed ma ka soo noqotay may kama soo noqon kana soo noqon maayo buu ku yidhi wuxuu yidhi haddii xanuunkaa aan ka kaco ilaaha maxamed maka lagu caabudi maayo buu yidhi ragga gaalnimada halkay ka taagneed eega markaasuu yarkii sidaa u eega aabbihii
qiblada u eego sii jeestay buu ilaahu aabbahay xanuunka ha ka kicin mowqifkaaba hadduu aabbahay weli uu taagan yahay oo cadaawadda ilaahay iyo rasuulkiisa uu hayo isagoo sankaraada uu leeyahay haddaan xanuunkaa ka kaco ilaaha muxamed maka lagu caabudi maayo hadduu la soo taagan yahay ilaahu xanuunka aabbahay ha ka kicina ku qaad buu ku dil kama kicina ku dhacay habarkii dhallinyaradu waa kaas sida ilaahay ugu xidhnaayeen Mus'ab bin Umayr radiyallahu anhu wardaa fatan Quraysh baa la oran jiray fatan Quraysh wiilkii Quraysh magaalada Makka nin dhalinyaro ah oo ka qurux badan oo ka xaraga badan oo ka dhar fiican ma jirin bal zamankiisa waa intuunan islaami ka hor markaas gabdhaha Quraysheed ay oran jireen caawa Mus'ab ana la soo haasaaway ayaam al-jaahiliyadi waa intay diintu dadka soo gaadhay markuu islaamayna hooyadii oo maal qabeenada uu ka dhaxbaxay ehelkiisii uu ka dhaxbaxay wuxuu ag fadhiistay nabigeena sallallahu alayhi wasallam markaas hooyadii ilaahay ka soo noqo diinta Maxamed wax walba waan ku siinay may buu leeyahay ka soo noqon maayo wax kale waan ku qaban hooyay laakiin diinta islaamka ka soo noqo kama yeelay taas iska noqo aqalkaaga iska fadhi ilaa uu nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu u diray markaa nabigu Madiinada al-Munawwara maqrib la oran jiray baa la reer Madiina markay nabiga u yimaadeen la bay'oodeen la bay'adi ay dhacday ayay yiraahdeen nabi Allah qof quraanka baran nagu dar markaa nabigu Mus'ab uu ku daray Mus'ab bin Umayr Madiinada al-Munawwara uu yimiday beer buu fadhiistay beer dhexdii halka uu dadka quraanka ku baray geed hoosti oo qof dadka inta loogu keeno halka uu dadka ku islaaminay magaaladii Madiina nabi Maxamed wuxuu yimiday aqal magaalada Madiina ka dhisan ma jirin iyadoo diinta islaamku ay gashay oo reer Madiina wada muslim yihiin oo Mus'ab bin Umayr uu dadaalka isagu uu la yimiday ayuu nabigu magaalada Madiina ku yimid oo lagu soo dhaweeyay markii Madiina uu nabigu yimiday dawladda islaamku Madiina ay biyo dhigtay ayaa Ali iyo nabigu sag fadhiyay ayuu Mus'ab halka maray nabigu hortiisa sabab ma aragtaanay mara wuxuu sitaa markaa yar googo'an oo baaliyo oo karkarma yeelata karkarma waa taqaanayso marada intii duugowday gooday ba mara kale soo qaaday lagu dhajiyaa markaa buu nabigu oo alayhi salaatu wasalaam markaa Ali baa ku yiri yaa rasuulullah maxaa loo heesaa balay sheeg markaa buu nabigu ku yiri yaa Ali waxaan xasuustay Mus'ab ma arkaysaa ninka dhalinyarada ma arkaysaa haa waan arkayaa waxaan xasuustay buu nabigu yiri intuunan islaamin quruxdiisii xaragadiisii dharku xidhan jiray ayaan xasuustay buu yiri iyo nolosha maanta uu ku nool yahay laakiin nolosha maanta uu ku nool yahay dhar la'aanta iyo nafaqa darrada ka muuqata ilaahay rasuulkiisa kaga raaliya rasuulku ilaahay rasuulkiisa ayaa dhalinyarada islaamku sidaas ay hayande maalintii uu dhintayna mara kafan looga dhiga la waayay mara yar waxa go' yar baa loo helayo marka xagga sare laga saaranayo lugaha ayaa noqonayay marka xagga lugaha laga saarana maradu xagga madaxay ka aguugaysay ilaa uu nabigu yiraahdo madaxana ka saara lugahana ma aragtaana geeda soo qaado kaga kafan uga dhiga saasa lagu aasay aragay noloshoodii adduunyada iyo dhalinyarnimadoodii halkaaba iska dhigeen ilaahay rasuulka inay raali geliyaan bay qaateen maxay qaateen ilaahay rasuulka inay raali geliyaan saafu nabigu soo qaaday dagaalkii Uhud ayaa iga qaadayay buu nin walba wuxuu aniga markaa buu nabigu ayaa xaqeega marin markaa gacmihii la noqdeen asxaabtu Abu Dujana ayaa yiri ana xaqeeda marin idin markaa buu u dhiibay nabigu sallallahu alayhi wasallam xaqeeda ay sheeg mushrikiinta qoortaad kaga jari galka ku cilmaysi Zubayr bin Awwam oo nabigayna in abtigiyaha oo tobankii jannada loo bishaareeyay kamid aha ayaa yiri maalinkaas waan yar cadhooday buu yiri
markuu Abu Dujaana yidhi aniga nabi Allah ii dhiib anna xagga baan gacanta ka soo fiiqay buu yidhi intuu nabigu sidaa eegay buu yidhi ima dhiibin Abu Dujaana nabigu u dhiibay waxaan isiri nabi Maxamed adoo ina abtigiya wuxuu seefta kuugu dhiibi waayay uu Abu Dujaana ugu dhiibay markaasaan isqabtoon yidhi kullay nabigu waxii buu ku socdaaye bal ha eegtid ninkan wuxuu sameeyay dagaalkii baa bilaabmay mara yaroo casbu la soo baxay oo halkaa madaxa ku xidhay marka Abu Dujaana Samak binu Kharash waa magaciisa Soomaali markaas marada carabtu hadday xidhatan marada cas hadday xidhatana waxay ka dhigan tahay waa geeri dhimasho unbaa diga maqlaysaane nolol buu ku soo noqday hayga sugina saxaabadu markay arkeen Abu Dujaana oo marada la soo baxo xidhay bay yiraahdeen Abu Dujaana maanta calaamad al-mawt buu xidhay khalaas dagaalkii markuu bilaabmay ayuu isaga oo xaragoonaya ninka dhalinyarada sidoo xaragooda ninka garanaya uu qalqaloociya Soma usasiyada jibiyo saxaabadu markaas ay yiraahdeen Abu Dujaana sidii mutakabbiriintu u socda wartadkii kibriga badnaasooday u socda markaa bi nabiga ku dacweeyeen ya rasuulullah eegsudu u socdo sidii mutakabbiriintu u socdaay markaa buu nabigu uu sii eegay nabi Abu Dujaana xaragoonay dagaalka ku sii socda hada dagaalku rasaas ma helo socdo rasaas tan baa leeyahay madaaficdan waa dagaalkii fuulayaasha dagaalka bariga kii geesiyaasha waa gacanta la isku tagayo ambaaro iyo waran iyo seef iyo markaasuu nabigu yiri socodka Abu Dujaana ku socdo ilaahay uu necab yahay laakiin meelahana ilaahay ku jecel yahay abu ku jecel yahay socodka uu ninka hadda u socdo qaabka uu socdo ilaahay waa necab yahay laakiin se ilaahay meelahan uu halkan ilaahay ku jecel yahay dhalinyarnimada iyo quruxdaada iyo xaragadaadu diintay ku fiican tahay iminka ku heenu meelaha magaalada dhexdiisa waraabaha u socdaan Soomaa sida dhurwaaga yaad u xaragoon taariku salaaba tahay saad u xaragoon kartaa ilaahay ma garanaysid bay ilaahay haddaad garan weydo maxaa qiimo ku leedahay markaas xal la xaragoon nin boqora oo kibir badan buu nin sheekh meel u joogsaday maalin boqorkaas uu yahay وما تقانا هوانا قانا سفيعا بانو قانا بقر كيلاهي ورنك محول دقاق لايه وحول انك البقر كان قانايو سفيعا وانو قانا مركز بل يقول يانا وسيئي تقانا ذاتك السيدي كو قمة كو قانا وهي شيء أولك النطفة بوري بلو قاقيه هورا مركز لقو أبو رينا بيها الرقا كي مادة مركو قفو أي كي مادانا واجب وكون قنسو قسلقو أيا لقا أبو ري هاي آخرك جيفة بوري مركز ديمتانا الدرحي ما نقول درحي حتى أنا دلت جوكتنا 5 كيلو يا صحراء أيا علاش كوس يتاي إلهي باكو أسطوري يبوكي ليش هذا الكا كورنا مثلا حال قلقل سقل لوعين صحراء سعوتات هيك بيقولوا بيه كادي يا صحراء يديق يا دعام بك أبو حي فرتاي ردك وحنون تواتاهي مالين مدبال نوقي يو زيارة نودو عينين سألقوا حيا الله شاي سعوت الله شاي سعوت الله شاي سعوت معك دقتها صحراء دي بعد أفضل هذا مالك لكو كلا زيارة لجماعة عدد وأكودة يسكا غلط وسود زيارة أدعية المقتل ورنا سألقوا حيا الله شاي تاجر من الناس الصحراء دافتي والله بكاء من الناس الصحراء يسكت تكتب والله بكاء مركب محط قيمة لها مركب بشيء والله الدين تان قيمة كلها سمع عندي هذا مركب الدين تان نقب سنة سعودية أرمنية والدعوة ده كشغين دعوة ده كشغين أنا دعوة ده معي دين الإسلام هو دين عجيب دعوة ده قفك إلهي درت أبح يا جماعات كالراعة جامعة الدون كورنا كدسن سين قفك أبدل كريم أيو خروجك قفك أبدل أنا وشيس سقو توق هادو جماعة قفك الراعة وطوبت كانوا توق بوهانجر شغادي سيهر جماعة الله بحيبك السوقات وحصون نقول سقو توق نمدي داي سقو بين بدنا أيو جماعة الراعي فرتن عشامرك الله السعودية وحصون نقول سقو بينتك طوبت كانوا isagoo غافل u baxay isagoo dhaakir u soo noqon isagoo jaahil u baxay isagoo caalim oo diintii wax ka soo barto cilmiga culimada jacayl buu soo noqon
isagoo daalim ahaa buu baxo ummadda dulmin jiray isagoo ummadda ixsaan u samaynaya buu soo noqon isagoo akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo lagu yaqaanuu baxay isagoo akhlaaqdiisa isbedeshay buu soo noqon isagoo labada waalid caaq ku ahaa buu baxay isagoo labadii waalid baari u noqday buu soo noqon ma arkin ma dhicin jamaacad maalin lugaynaysa waa ka jamaacaddu markay lugaynayaan baadiyaha laba isku raacaan moogta weliba nin dacwadda ku cusub iyo nin dacwadda muddo badan ku soo jiray amiirkii jamaacadda markaas yaa mid dhallinyaro ah ayuu yidhi adu aniga i raac intaa jamaacaddu marka ay lugaynayaan tuulo ilaa tuulo u lugaynayaan qur-aanka isku saxaanoo ducooyinka isbaraanoo axaadiista isxafidsiiyaan sheekhii baa markaa yarkii ku yidhi maxaad ka shaqaysaa adu yarkii baa yidhi waxba kama shaqeeyaba iminka maxaad yaraantaadii baratay od markaasuu yidhi saasuu sheekh waxaan bartay haa iska daa hay weydiin markaas ma ii sheeg aniguba yaraantaydii aqoontaasaan bartay adigu maxaad baratay markaa wuu yidhi sheekh waxaan ka shaqayn jiray iyo waxaan bartay maad naga daysa ma ii sheeg wuxuu yidhi jeeblaan ahaa buuhi jeeble ma taqaanaa suuqa magaalada ugu weyn intoon istaago dadka jeebadahooga waxa ku jira ka saaraa buu yidhi shaqadaydu waaba shaqadaa buu yidhi qaabka lacagta jeebadaha ku jirta loo saaraan aqaana oon bartay buu yidhi hadda waxaan u soo baxay buu inaan toobad keeno wuu yaabay sheekh seed ma jeebka qofka lacagta ku jirta markaasuu haa adiga uu yaabay ila odaygu iska wuxuu moogtay marka in yar lugeeyeen bay jamaacadii meel ku nasteen markii la kacayay ayuu markaa yarkii baa yidhi amiir alaabtaada waa culays aan kaa qaado may waan qaadi karayaa iidda may aan kaa qaado may oo yar lugeeyeen ilaa intuu han kaa qaado idhib lahaa buu lacagtii u watay odayga ka saarayba nabiga ku salliya markay dhexdaa marayaan buu ka yidhi sheekhe sahaydaadii bal jeebadaada ka baadho oo uu taabto halkee waatan buu yidhi ha dhixina hoo goorma iga dhacday kaamay dhicine markaan alaabta kaa qaadiyaan aan ku lahaa alaabtaad baan u socdo waan kaa tartiibiyey buu dacwaddu waa cajiib wallaahi waa cajiib camalka dacwadda dad badan baa dacwadda la yaaban dacwaddu waa islaax dacwaddu waa tarbiyatu nafs dacwaddu waa dadka la hagaajinaya baabuurka hadduu cadilma halkee la geyn dhakhtar mise garaj haddaan dhakhtargeeya ka waran majnuun dhakhtarka looguma talagelin dhakhtarka dadka xanuunsan baa loogu talagalay baabuurka garaashkaa la geeyaa hadday bini aadanka iimaankooga iyo akhlaaqdooda iyo diintoodu dhaawac soo gaadho meesha ummadda lagu hagaajin kara waa masaajid meel kale maaha masaajid in la keeno masaajidka in wax lagu baro khuruuj markaan baxayno meel kale tegi mayno مسجد ما تجينا مسجد إلى مسجد حلقة إلى حلقة صلاة بعد صلاة عمل بعد عمل خير بعد خير ونور على نور ويان بركائنا الله درت أولا بحنا بيود إن شاء الله إن شاء الله هذا قولوا إن شاء الله هذا درس سيف عنه هذا دعوة داس مركز عمل وين الله نس markaad baxaysana qofku markuu baxayana reer hadduu leeyahay reerkaaga dayac lama leh reerkaagana la soo ballan masaariiftoodana meel u saar jamacaddan ilaahay dartii u raac haddaad shaqaale dowladeed aad tahayna shaqadaada fasax ka soo qaado haddaad ciyaal iskuul tahayna iskuulkaaga maaragtaanay markii fasax la galo fasaxaaga jamacadada raac oo ka faa'iidayso dacwaddu odhan mayso qofku reerkiisa gaajaha kaga dhaqaaqa odhan mayso labadaadii waalidoo adeeg u baahanna ku odhan mayso ka kaalayo ilaahay dartoo bax ku odhan mayso bal waxay ku leedahay dacwaddu sharcigu wuxuu leeyahay ma dacwaddu ku leedahay labadaada waalid orada u khidmay bay ku odhan hadda adiga kaa maarmayn marka waa camal tarbiyada oo la doonayo adiguna naftaadana ku hagaaji walaalahana soo hagaaji insha allah dhaha arday baad u badan tihiin bal wixii jaamacadaha dhigto gacanta taaga ama kolleejka si fiican u taagan maasha allah ayo wixii madaarista diiniga dhigtowna cilmi sharciga dhigtow ama quraanka ninkuna gacanta taaga maasha allah talabatul cilmiga inaga badanaya allahu akbar
jigjiga way dhaqaaqday allah barakeeyo ama dhaxada tayib wixii shaqaale dawladeed oo balgacmaha ninkuna taaga ama hay'adaha ama shirkadaha private-ka u shaqeeyo si fiican u taaga hay taaga wixii aan waxba imika haynay wali shaqa sugowna balgacanta taaga ma badno ma sha Allah tayib waxaan ku ballamaynaa marka inaan ilaahay dartii u baxdaan 2 bilood 40 cisho bil 20 cisho intii ilaahay firaaq ku siiyo raax jamaacada naftaadana soo islaaxi walaalhaana islaaxooga ama qaybtaada ka soo qaado bal ayaa isqoraya insha Allah isa soo tartiibinaya istaaga gacanta maaha in istaagaan ba fiican waanu ducaynaynaa insha Allah ballan maahayna waa niyad haddii ilaahay ku waafajiyana waa fadliga ilaahay hadday duruuftu ku saamixoodana ajarkii baa ilaahay kuu qoray